asalaamu calaykum. maanta halkan ku sharxaya article ama qoraal ama warqad aan ka qoray waa maxay cryptocurrency. dad badan ayaa suuqan ku cusub. waxaan rabaa si cilmiyeysan oo inaan ugu sharxo dadka cusub oo ku wareysan nooca cryptocurrency iyo waxay ku kala duwan yihiin. warqadan marka taasi anfacaysa, marka waxaan idinka rajeynayaa inaan warqad akhrida. aniga hadda waa soo koobaya warqadan dhan ma akhrinayo, waqti fiidiyoga ayaan ugu dheeraanaya. warqadan iyadoo English iyo Soomaali labadaba YouTube-ka linkiisa soo dhigaya, ama Telegram-kayga ama Twitter-kayga habta meesha igala socotaan insha Allah, ama Medium-kayga laftiga waa soo dhigaya. markaa fahantii muhiimadda iyo qiimaha ay cryptocurrency leedahay iyo sababta loo soo saaray markii horeba, markaas ayaa waxaa lagu xijiyaa qaabka ku gadan lahayd. af Ingiriiska wuxuu dhahaa why markaa fahantid, kadibna how markaa kadib baa fahmaysa. marka sida loo gatay iyo meelaha laga gatay waxaas dhib ma lahan, laakiin waxaa muhiima horta waxaa macnahay ku fadhiyaan iyo muhiimadii ku fadhiyaan inaan markoona aan wada fahano. marka waxaan ku bilaabay anoo dhahaya cryptocurrency dhan waxay rabaan inay lacag noqdaan, ama dadka wada ha ogaadeen ama yeese ogaanin, laakiin waxay sameeyaan boor isku qaris ayagoo ula jeeda kale ama ay ka dhab tahay hadday doonta cad ka tahay, ayagoo dhahaya waxaan soo sameynaynaa projectigan wadno ama coinkan aan wadno wuxuu ku saabsan yahay decentralized app, waxa la dhaho decentralized DeFi. waxaan oo hadda meesha ku soo taxan aad arkaysaan mid ka mid ah ayay mid walba sheegtaan inay ku saabsan yihiin. decentralized kan laga hormariyay wax walba ay leeyihiin, sida shaaha loo cabaayaan decentralized ka dhigan. tusaale ahaan baan ka wadaa decentralized kan horta aan wada fahano. decentralized waxa weeye adigoo hadda matalan warqadan aan akhrinayo adduunka dhan ku farqiyay, China, Japan, Soomaaliya, South America, meel walba ku kala yaaciyay, iyo marka anigu gacanta ku haysto aniga dhowr qof kale gacanta ku haysto way kala duwan yihiin. haddii adduunka warqadan dhan ku firaqsan tahay way adag tahay inaan wax ka badbedelo. haddaan wax ka bedelno macno yeelan mayso, ilaa dadka dhan baa koobi haysta, adduunka dhan baa koobi haysta. laakiin haddaan anigii dhowr qof oo kooban hayno, isla markii warqadda waxaan ka bedeli karnaa, erayadan waxbaan ku diri karnaa, waxbaan ka dhimi karnaa. marka midda aan anigii dhowr qof wax ka bedeli karno af English waxaa lagu dhahaa centralized, marka wixii ay hal meel ku kooban yihiin bedelkeeda. markay decentralized wixii yihiinna waa markay adduunka dhan wixii ku firaqsan yihiin. warqadan adduunka dhan markay ku firaqsan tahay, haddaan aniga kayga koobigay wax ka bedesho, dee qofka China jooga koobigii saxdaa buu haystaa. marka bedelkayga aniga wax macno weyn ma soo kordhinayso. marka haddaan wada fahnay decentralized inuu nooca u shaqeeyo, waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego decentralized waxa la dhaho haddii wixii decentralized laga dhigo waxay noqdaan wax aad iyo aad slow u ah ama aan dhaqso badnayn. waxay noqdaan wax qaaliya, waxay noqdaan wax mar walba macnaha qadka ka baxbaxaya oo broken decentralized ciladahaasu leeyahay. haddii wixii markii decentralized laga dhigay ay slow iyo qaali noqonayaan, maxaa marka horeba looga soo guurayay mid decentralized ka? hadda YouTube-ka iyo Facebook iyo application-ka kale ama website-yada kale ama software-yada kale badanaa waxay u badan yihiin wax centralized oo hal meel laga maamulo. markay centralized yihiin hal meel laga maamulaan waxay quick waana dhaqso badan yihiin, waana lacagtoodana way jaban tahay. laakiin markay decentralized laga dhigo wixii qaali bay noqdaan. marka maxay tahay sababta looga ordayo centralized-kii oo looga ordayo decentralized-kan qaaliga ah? maxay tahay faa'iidada ku jirta? marka taas weeye waxaan rabnaa inaan si deeply u fahanno. dadkan maxay uga ordayaan decentralized-ka u leeyihiin wax walba decentralized baa ka dhigaynaa. meme coin baan soo saarayna oo decentralized ku saabsan. waxaan soo saarayna Oracle waxa la dhaho. waxaan dhan real estate guryihii hadda la iibsanayay baa waxaan ka dhigaynaa decentralized. dad ku dhahaya arkaysa coins qaarkood ku dhahaya shidaalkii waxaan ka dhigaynaa ama petrolkii decentralized. maxay marka ugu ordayaan dadkan decentralized-kii haddaan isla ognahay decentralized inuu qaali yahay? waxay ugu ordayaan oo keliya waxa weeye inay lacag daabacaan. haddaad ogaataan siday u shaqeeyaan cryptocurrency, waxa weeye aniga iyo dhowr qof oo kale ayaa meel tegayna, waxaan fikrad ayaa la imaanayna. fikraddaas hadday doonto ama ha shaqayso ama yeese shaqaynin, waxaan ku dhijinaynaa fikraddeena waxa weeye decentralized ayaan ka dhigaynaa. coin baan soo saaraynaa ama token. haddii aan coin iyo token si lagu soo saaro waa si aad iyo aad u fudud. computer baan qaraynaa, software baan garaacaynaa, hawadaan kusii deynaynaa. wax kharash nooga baxay ma jiraan inta badan. keliya un dhowr saacadood aan intaan isu nimid fikrad un keennay un wuxuun sheegnay ayaa hal mar waxaan sii daynay coins ama tokens hawada kusii daynay oo aan meel dadku ay ka kala gataan geynay. marka maxaa dhacaysa inaan marketing ama xayeysiin u samayno dhaho coinkeena waxaanu qabanayaa. kadibna dadkii masaakiinta ahaa oo meeshaan ka maqlay siribta suuq oo meesha suuqa cryptocurrency ka maqlay lacag ayaa laga sameeyaa ayaa imaanaya. waxay maqlayaan token cusub ama coin cusub baa suuqa soo galay. lacagtoodii $1 oo qofku soo shaqaysto u soo dhibaatooday oo aad iyo aad ugu soo dhididay ayuu wuxuu siisanayaa
coins anagu daabacnay intaan dhowr saacadood isu nimid oo wax haba yaraatay energy ama hawl ah ama lacag naga gashay aysan jirin ayuu lacagtiis adkeyd ku bedelanaya coinkaas anagu maxaa marka noo soo dhacay lacagtii adkeyd oo qofkan soo shaqaystay ayaa noo soo dhacaysa haddaan nahay dadka coinka samaystay qofkiina maxaa miskiinka u dhacaya coins aan samaynay marka meeshaas waxaa ka arkaysaa inaan lacag anagii daabacnay oo si indirect u daabacnay haddii aniga adigoo kaleeto hadda doolarka ama yuurada ama poundka daabacno intaan guri tagno dowladaha waddankaas wayna xirayaan isla markiiba xabsi baan hore ka gelayna laakiin haddii waxaan decentralized ku magacaabno oo coin la nimaadno oo idea la nimaadno oo aan suuqa kusii dayno oo qofkii lacag saa kale u qaadno waxaa dad badan hadda ilaa hadda waa lagu badbaaday cid lagu xiray ilaa hadda ma hayna way yar yihiin dadka lagu xiray laakiin taas way marka waxaan u leeyahay ama dadka cryptocurrency soo saara ama ha ogaadeen ama yees ogaanin waxay rabaan lacag inay sameeyaan taas ayaan ka wadaa marka maxaa meesha idinkaga muuqata haddaa si u fikirtaan si deeply haddaa u fikirtaan waxaa arkaysaan muhiimadda suuqan ama ay leeyihiin ma ahan projectiga ama ideada ama fikradda ay la yimaadeen ma ahane waa tokenkaas ama coinkaas la gadayo weeye sababta horta loo gadanayo oo lasugu ordayo suuqan loogu soo yaacayo waa intaa keliya ma ahan projectigan waa project cajiiba ma ah tokenka ama coinkaas maalintii la rabo ayaa la kordhin karaa ilaa waa wax ay iyagu maamulaan decentralized way ku magacaaban tahay laakiin decentralized rasmiya ma ahan waa decentralized markii la rabo centralized laga dhigi karo oo supplyga la kordhin karo oo coinka hadduu 100 milyan yahay haddii isu yimaadaan waxay awoodaan inay 200 milyan ka dhigaan coinkii kadibna maxaa dhacaysa haddii 200 milyan ka dhigaan lacagtaadii aad coinkaaga haystay oo isdhahaysa lacagtiisa ku kordhaya coinan badan ayaa suuqa soo gelaya coinka haystay bana lacag ka hesho iska dhaaftaadi ayaa minus gelisay marka waxaan isla fahanay inay coinankan ama cryptocurrency-gan ay tahay macnaheedu inay lacag daabacaan oo si dadban ay dadka lacagtoodii ay usoo dhideen uga qaataan waxaan kaloo isla ogaanay decentralized ay sheegayaan inuu magac kaliya yahay aysan badanaa decentralized adag aysan haysanba waxaan kaloo soo aragnay haddii aad xataa project decentralized soo saaraysid oo laakiin coinka meesha laga saaro oo ilaa coin decentralized projectkiisa samaysid cid gadanays inaysan jirin maxaa yeelay fikraddaas fikrad macnaha dee qof walba intuu ka fikiro waa sidii adiga dukaan oo kaleeto anigu furto oo kaleeto oo shaaha lagu cabo haddaad u aragtid aan ku dhaho kaalay dukaankayga soo maalgasho waxaa fiirinaysaa meesha ku yaalo qiimaha lacagta kasoo bixi karta waxaas dhan marka waxaa leedahay dukaankan mid shaqaynaya ilama muuqato faa'iido badanna lacagteeda meel kale ayaan gashanaya haddii coinka meesha laga saaro projectuna saas kula noqon lahaa waxay dhihi lahaa okay bahalkan idean decentralized ka soo saartay dhinac waa rogrogi lahaa waxaan fiirin lahaa faa'iido ma kasoo bixi kartaa kadibna waxaa dhihi lahayd lacag gashan mayo maxaa yeelay ima muuqato inay feeshaan faa'iido kama soo socoto baa dhihi lahayd ilaa decentralized waan soo sheegnay inuu yahay mid slow ah oo aad iyo aad macnaha aan speed badan lahayn qaali ah badanaa iska googa waxaas dhan marka eegtid ayaad dhihi lahayd lacagteeda ma gashateen marka dad qaar in ka mid a waxay isweydiinayaan maxaaba ku jaban hadday nimankan ama dadkan ay soo saaraan lacag maxaa ku jaban waagi hore waxaa la isticmaali jiray dahabkaasna si dabiici ah ilaahay dhulka ugu abuuray qof gooniyo dahab sheegan kara maanta anaa iskale ma dhihi karo qofka macnaha gatay kama hadlaya laakiin macnawiyan dahabka waa wax dhulka ilaahay meel walba adduunku aad ka heli kartid haddaad soo qufatid xataa hadda mars laga heli karo sida la sheegayo loo rajeynayo in laga helo marka sidaas dahabka adduunka ilaahay ugu farqiyo ilaahay marka hore soo saaray kaas ayaa lacagta ugu ficneyd oo la haysan jira ay tahay marka lacag waxaa la rabaa sida taasoo kaleeto haddii taas cillad ku timid dahabkii oo laga soo guuray waxaa la rabaa lacag sidoo kaleeto ama mid u dhow noocaasoo kaleeto inkastoo la heli karin sida dabiiciga ilaahay soo saaray laakiin mid u dhow oo cadaalada oo cidna ka xigin oo aniga halkan jooga iyo qofka China jooga iyo qof kale Africa jooga oo qofna ka xigin dowlad kale ka xigin America ay ka xigin Soomaaliya decentralization wuxuu ku fiican yahay lacagta cadaaladda ma aha lacagta nimankan ay soo saareen lacagta cadaaladda oo dadka dhan u dhaxaysa in lagu xiro maadaama decentralized uu yahay wax adduunka dhan ku firqsan lacagta hadda waxa maamulo dowlado iyo bangiyaal ay isku wada xiran yihiin oo sidii gaangiskii kale u shaqeeyaan haddii la damco in looga qaado lacagtii dowladda gacanteeda laga warajiyo hadda doolarka kale haddii la dhaho arkaysaan wadamo badan ayaa lagu burburiyay markay dhaheen doolar ma isticmaalayno example haddii marka la dhaho lacagtaas ay dowladdu ku takrifayaan ayaa laga wareejinayaa oo dadka caadiga lagu soo wareejinaya dagaal ayay ka xigaan dowladuhuna waa aragteen waa awood badan yihiin de waa shakhsi iyo laba way ka awood badan yihiin kooxba marka sidee gacantooda loogu wareejin karaa aysan u burburin karin qofkii ka wareejinaya ayaa waxa loogu baahan yahay decentralized maxaa yeelay decentralized adduunka dhan wax ku firqsan weeye
haddii lacagtii decentralized laga dhigo qofka China jooga iyo qofka America jooga hadduu China oo kale tiraahdo lacagta soo joojinayna America ayaa laga isticmaalaya haddii tira America oo joojinayna Europe laga isticmaalaya haddii Europe Africa laga isticmaalaya adduunka dhan wax hal mar isu keena oo ay hal mar go'aan ku gaaraan horta adduunka ma jirto marka decentralized kaliya waxa loogu baahan yahay lacagta cadaalad ku dhisan oo qofna ka xigin marka lacag noocaas oo kala ma la hayaa ayaan hadalkii ku soo koobaya lacagta noocaas kala waa la hayaa waa mid Bitcoin la dhaho waa mid ugu horeysay siday ku soo baxday haddaan fiirino nin ayaa warqad soo saaray 2008 dhamaadkeedii adduunka dhan ku sii daayay wixii barnaamijkaas ayaan soo wadaa ninkaas lama yaqaan caawa wuxuu nin inaag wuxuu yahay lama hubo iyo koox maxay ahaayeen 2008 ayuu warqad soo saaray leeyahay ideyadaasan haya ideyadii dadku warqadii adduunka dhan ku daabacay internet ku daabacay qof walba akhrin karo dhowr bilood kadib 2009 ayaa loo bedelay ideyadii wax la dhaho internet software loo bedelay oo Bitcoin hadda maanta haysano live laga dhigay oo markaas ayay bilaabatay maalintaas la bilaabay qof walba oo la socday ama maqlay wuxuu awooday inuu ka qayb galo ama China joog ama Soomaaliya joog ama Brazil joog ama America joog waxa awooday inaad ka qayb qaadatid oo lacagtaas aad si macnaha qofkii soo saaray iyo adiga isku mid baa ka tahaydeen ninkii warqadda soo daabacay adigoo Soomaaliya joog isku mid ayaa power ayaa kala haydeen computer kaliya shidan kartay laptop markaas mining wax ayaa lagu sameeyay marka asaga ninkii soo saaray mining geeskiisa ka bilaabay wax uu hore qoondaystay ma jira hadda cryptocurrency kaleeto waxay sameeyaan 100 milyan oo kale ayay jeebka gashanayaan inta suuqa ku soo deyn asagu saama sameeyeen wuxuu yiri warqad buu daabacay qof walba ha ogaado dadku dhan ha ogaadeen kadibna asaguna qaybtiisa ka qayb qaatay miningkiisa ayuu dhinaca ka bilaabay mining waxa weeye energy gelinaysa iyo lacag si aad ula soo baxday lacagtaas cusub oo Bitcoin ah marka cid gooni oo maamusha ma laha ninkiis marka soo saaray hawadu ka baxay waxay ilaa 16 sano ayay ku soo shaqeynaysaa iyadoo cidna maamuleen cid maamul la'aantaas faa'iido weyn ayaa ku jirta maxaa yeelay haddii cid maamulaysa la helo waxa imaan lahayd in wax laga bedelo marka waxa kale oo waxaan kale muhiimadda ka dhigaysa waxa weeye waxa lagu xidhay 22 milyan oo cidna bedel karin waxa kale in sheegaya Bitcoin decentralized waa mid ugu adag ee suuqan dhan ka jirta maca ku kale dhan way qaarkood way qarsan yihiin qof walba aqli leh oo suuqan ku jira wuu qarsan yahay in Bitcoin tahay decentralized mid ugu adag marka waxaan kale oo in yar ka sharaxay oo soo sheekoobay waa maxay lacagta ugu fiican waa inay noqoto lacagta ay dadka dhan ka dhaxaysa waa lacag cidna macnaha aan qofna qof macnaha ka xiginin waa lacag adag oo la jabsan karin waa lacag si cadaalad ku soo baxday tan kale waxaan ka sheekeeyay maxay tahay lacagta shaqooyinkooda wax la dhaho in wax lagu kala bedesho in hantidaada ku kaydsatid iyo inaad baabuurka qiimihiisa hadda 10,000 weeye diyaaradana 1 milyan la dhaho ama 10 milyan la dhaho sidaas in wax lagu kala qaybsado numberka noocaasna way qabataa shaqadeeda weeye waxa kale oo aan ka sheekeeyay hadda wax adduunka lacag ahaan loo isticmaalo waa lacagaha fiat-ka loo yaqaan hadda dollarka iyo eurada iyo waa lacag ahaan ayaa loo isticmaala waxa kale oo lacag ahaan wali loo isticmaala dahabka meelaha qaarkood silverka kaleeto iyo shidaalka iyo waxyaalaha la midka waxa kale oo lacag ahaan loo isticmaalaa government bonds waxa la dhaho oo dawladda soo saarta ayaguna guriga hadda lacag ahaan baa loo isticmaalaa hadda ogtahay hadaad ogeyn guriyaha hadda waxay noqdeen si lacag ahaan ayaa loo isticmaalaa qiimahan hadda guriga sii kacaya iyo dawladkan sii kacaya Soomaaliya hadda dawladkii qaaliba noqdeen waxa kicinaya ma ahan inay dadkii meel degaan ama guri rabaan inay ka dhigtaan ma ahan muhiimadda kicinaysa waxa kicinaya waxa weeye gurigii iyo dhulkii oo noqday meel hantidii lagu kaydsado lacagta functionkeedana waxa dhiri waa qayb kamid ah store of value waa qayb kamid ah lacagta functionkeeda dhulkiina wuxuu noqday store value in meel lacagta lagu kaybsado marka haddii la helo lacag si decentralized oo cadaalad ku soo baxday oo ah Bitcoin dhulkii kala barba qiimihiisu noqonaya gurigii kala bar warqiis bay noqonaya wax walba raqiis bay noqonaya aniga saan aaminsanahay way marka waxaan ku soo gabagabeynayaa hadda suuqan ku cusub tahay ha ku wareerin cryptocurrency yaa lagu wareerin wax macno leh oo weyn ay ku fadhinana malahan markii laga reebo Bitcoin aniga waxaan aaminsanahay Bitcoin cryptocurrency ma aqaan waxaan u aqaanaa Bitcoin iyo cryptocurrency ayaa kala dhaxana marka Bitcoin way ka duwan tahay cryptocurrency aniga fikradeeda weeye marka waxaan idin leeyahay warqadda ayaa si fiican faahfaahin uga helaysaan hal page weeye waxaan isku dayay in hal page aan ku soo koobo fadlan akhriya wax badan ayaan aaminsanahay inaad ka fahmi doontaan aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh